تطبيقاتك ديسمبر ما نوع كلا يرجع في العالم ما أنت أصدق كل ما مثلاً ما حدا حير عطورة أنا هو نفقع بمدحونه ما مقبلت كينية أو دقة حير عطورة أنا مر بلوغ قد كبر سندرت باو سراكيش سؤال ولا نوع وين الله سبحانه يفسر عبد وطني كم الهاي المقعي وعبد القني فارح على الرق marka koowaad ilaahay aan mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha maamulka Khaatumo ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha hore Khaatumo gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo masharafta kale assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana waxa kamid ahaa dhalinyaradii 17 December dhagaxtuurka bilaabay subaxa iskuulkan aadayay marka meelaha gobolada markaan marinay baan la kulanay iyadoo iskooladii ardayda soo fasax qaadatay oo wax la yiraahdo ay la dhagax tuurayo maalintii oo dhan adigu waa dhagax tuuranay waxa la yiraahdo qofkii maalinta joogay 17 December caawina joogo kale dadka aad uga nasiib badan yahay maalinta 17 December xabsiga weyn hadeer ay ku xidhan saraakiisha Soomaaliland iyo masjaamaca dhexdooda baan waxa isku haysanay dhashiikayaal iyo baroono anaguna waxaan wadaf kala soo taagnay meesha la yiraahdo masjaamaca sukadiisa iyaguna xabsiga dhinacooda ay taagnaayeen iyagoo ilaa inta 10 gaari meelahaas oo military iyo police iyo wax kasta isugu jira kulli maalinta iyo maanta way kala duwan yihiin qofkii maalinta ay joogay dhagax tuuray caawina joogay dadka aad uga nasiib badan yahay dadka kulli kuwii maanta ku dhaawacmay kuwii aan ku dhaawacmin way joogan badankoodu way joogan baa maleynaya marka waxa leeyahay dadka ugu nasiibka badan baa kamid yihiin maalinta runtii ay waa jecel markaan maanta aan dhagax tuureynay 17 December ma nuuga kala yarjaa fi ilaahay maanta asda kulli aan مثلاً ma dhagax yar tuuras ana hoo nafqa baa madaxweyne maamul goboleed Kenya oo dhagax yar tuuras ana mar balluu qad ka booysan darteed baa saraakiisha Soomaaliland wala nuuga weyn Allah soo xilaya faysal abdi wataani ka mid ahaa ma aanan aaminsanay maalintaas waxa la yiraahdo taangiyada Soomaaliland sugagii wixii ay haysteen carraartii oo dhan badartooda loo furanaya dhagax yar dartii tuurasaan laakiin way dhacday oo hadda waxay hor fadhiyeen madaxweynaha si Khaatumo maalinta dhagax aan tuurina sababtiisa in madaxweynuhu ku yimaado aad baan ugu faraxsanahay waxa leeyahay inta la qaadin xamar leeqa saddex xabood baan aniga ugu dhacay mid Fred Shiku halaba xabada caadi ah mid waxa laga saaray manhal labana waxa laga soo saaray meesha Shaafi Hospital Muqdisho dadkii halka raqam waxa fadhiya aadan wali oo dadkii kamid ahaa aad ula socday xaaladda intaan xagga joogay isagoo hadda ma garanayo la soo hadli jiray xaaladda la socday sidoo kale halkan waxa fadhiya indhasheelo Shaafi Hospital loogu yimi aniga labadii wiil aan la socday oo la kala oran jiray Shaafi iyo hadda buuhooda joogan filan joogo iyo Mustafa Cabdi Ashkar hadda baa ma jooga lagu ma jiray meesha la yiraahdo dhakhtarka aad baan ugu mahad celinayaa inta aan la qaadin aan ali meesha la yiraahdo manhal laba habeen bay ugu farxad badnayd waa habeenkii garaajama garaas Ismaaciil hadda halkan fadhiya oo ismada isugu yeeray iyo habeenkii Soomaaliland laga saaray meesha la yiraahdo magaalada labada habeen bay ugu farxad badnayd marka aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa xafada ka soo qayb galo